laakiin cuntada la iskugu wada imaado boqolkiiba 90 qoys waxa weeyaan afarka weeyaan in garoonkaasi lagu soo qoomo oo aad muddo mataqaanaa in kubadda heer qaran la ciyaarayo magacaygu Cabdullaahi Raage sayidka lagu naanaysaa waxaan ku dhashay oo waxbarashadeeda quraanka hoose bishii hoose dhexe iyo jaamacadda ku qaatay magaalada Boorama nolosheeda inta hore dhan waxaan ku qaatay nolol iyo fasax iyo talxiis iyo waxyaabaha la midka ah inta u dhaxaysa Jigjiga Djibouti iyo Hargeysa marka ugu horeysa Ramadaan maqlo waxa ugu horeeya hortigisho degdegaya waxa weeye fasax sababta fasax waxa weeye Ramadaantii ugu horeysay ee iskuul sanadkii ugu horeysay iskuul galo fasaxa labada teeran ama labada qaybood ee sina dugsiyeedka u dhaxeeya Ramadaan ku shaqaagay marka maskaxdayda waxa galay fasaxaas inuu fasax Ramadaantay sanadii dambe laakiin ma dhicin marka xasuusteeda ugu horeysay Ramadaan ee ugu muhiimsan horta waxa weeyaan waa fasax laakiin markii inta laga yimaado waxa maskaxdayda ku soo dhaca horta deganaad baa maskaxdayda ku soo dhacda jawiga magaalada isbedela waxa ku soo dhaca diyaar galowga suxuurta waliyo ka hor sanadahan dambe ma xasuusta laakiin sanadii hore isbuuca Ramadaanta ka horeeya qoysku wuxuu diyaar galowga jiray familiyada ama qoysaska magaalada waxay diyaar galowga jireen suxuurteena si diyaariyo marka raashinka wadaniga ee heeda iyo sarreenka iyo galeyda iyo waxyaabaha la midka ayaad arkaysay guriga hortooda iyagoo lagu tumayo ama lagu shaqleeyo lagu haadinayo lagu si diyaarinayo marka diyaar galowga suxuurta afurka dabcan sambuusa oo caan noqday sambuusaha iyo baasha labaniyada la yiraahdo makastar la yiraahdo cuntooyinka Ramadaanta mataqaana la sameyn jiray xiyaalnimada marka laba shayba adigoo caruura oo Soomaaliyeed oo maxaan ku raahdaa dadka weyn la sugay Ramadaanta oo meesha gaarka loo maamuusay afurka la sugay meesha gaarka loo dhigay cuntada gaarka loo diyaarinayo ee laga ilaalinayo cid walba ilaa waqti ku gaadhay saacada loo eegay eedaanka loo eegay waa midna waxa weeyaan in dhadhamo lagu isticmaalo maadaama ima yartaa reerka jooga marka intada dadka Soomaaliyeed haweenka Soomaaliyeed diyaarinaya ad kolba mataqaanado ilmo yara sambuusa dhadhami maxaa ku raabaa baastada dhadhami waxaan suugadan dhadhami cuntada dhadhamisi labadaasi waxa weeyaan xaqa mataqaanaa xasuus bay iblihiin sidoo kale Ramadaan waxa xasuus u yeelaya misalada tuwil habeenkii Ramadaan marka la afuro waxyaabaha oo kala duwan yahay afurka inteenka kale dhaqankeena ma ahayn cunto la isku wada imaado marka aroortii wala kala quraacda doorka wala kala qadeeya habeenkii wala kala cashay qof xilliga soo rawxay xilliga soo hiida la cashay doorkii qof xilliga soo rawxa la qadeeya laakiin cuntada la isku wada imaado boqolkiiba 90 qoys waxa weeyaan afarka weey yar iyo weyn qof shaqeeya qof aan shaqeynin cuntada reerka jamcisa isku ururisa marka isku imaatinkaas iyo kadib taraawix loo baxayo maxaan ku raahdaa ciyaalnimadii ama markay koreynimada koreyno taajidada kala duwan ee taraawixda lagu soo tukanayo mataqaana macnaha sameyn jireen culimada ama quraada qaariyada akhrinaya quraanka masaajidkaas hebel baa tukanaya inta ragcadooda ku tukanayo uu dhaadheeraya laba bog ragcadii ku tukada saddex bog ku tukada bogyo barba ku tukada quraanku dhameystiraya meene kala bad taraawixdii taajidku isku dhameystiraya yani qisadaas oo dhan jawigaas oo dhan iyo maalmaha Ramadaanka horeeyay maalinta koowaad iyo maalinka labaad madrasada lagaga sheekaysto quraanka lagu baranayo iskuulka lagaga sheekaysto xaafadda lagaga sheekaysto kolba masaajid la soo tijaadiyo masaajid hebel oo qabo oo jawi macaan waaga moofta AC-ga iyo air conditioning kala wada masaajidadu mijirin kamruuxada ay air condition light maadaama maamulka nadaafadda iyo qalabaynta masaajiddu kala duwan yihiin qaar yani deganaansho badan aad ku dareemayso nadaafad iyo carfin iyo qabow iyo ku dareemayso qaar mataqaana ka duwan imaamyada laftirkooda codkooda kala duwan shaqadiisku ayuu matalaya Sheekh Jaabir bin matalaya oo mataqaana quraanka waagaas markaan baranay la dhageysan jiray waxyaabahaas jawigaasi ka dambeeya maxaa ku raacda afurka ka dambeeya la taraawixda socodkaasina waxa xasuus la weeyaan Ramadaanta waxa kale oo xasuus leh inta dambe la soo weynaaday ma laakiin marka la yareeraa waxa xasuus leh waqtiga lagu gulyahan xaafada ka maqnaata hadayg marka maghrib yaraantii lagu xiri jiray marka wax yar soo kortay ilaa cishaay laga soo yeeyo soo hayto laakiin Ramadaan markay gasho ilaa taraawixda laga soo baxayo taraawix marka laga soo baxo tan xaafada adoo mugtay 9 habeenimo 10 habeenimo marka ay gaari jirtay habeenimadaas waxyaabaha xasuusta la kamid tahay dhanka marka ay yimaado waa laga yaabaa magaalooyin badan oo kale Soomaaliyeed inay leeyihiin laakiin waxyaabahan Boorama aad ugu xasuusta waxa kamid ah Ramadaanta kubadda aad loo ciyaara kubadda cagta aad loo ciyaara marka tartanno iyo koobo kubadeed oo u gaar ah Ramadaanta magaalada aad caan u yahan jiray ilaa hadana caanka oo lagu tartama garoonno la yaqaano Ramadaanta koobo waaweyn lagu dhiga jiray xaafadeeda kale inkastoo imika
garoonka intuu baabaya jigooyin noqotay la degay laakiin garoon dariskayga jiray oo mataqaana xaafada ku yaalay aad loogu ciyaari jiray oo aad loo daawan jiray marka in la ciyaaro oo xilliga kale kubadda la ciyaaro laakiin kubadda Ramadaantii daawashada la yaab lahayd macnaha xaafada oo dhan rag waxa jooga koray waxa jooga hataa hablo yar yar waxa jooga marka qaarkood in garoonkaasi lagu soo qoomo oo aad moodo mataqaana in kubadda heer qaran la ciyaarayo ama mataqaana koob waaweyn la kala qaaday garoonkaas uma aha tobanaan garoon magaalada Mudanine sida yihiin marka garoonadaas aad u xasuustaa waxaan iloobin maadaama aad u saameeyay jeclaa edadii la caafimaadkood u daayo waan saameeyay la sameeyay marka qaarkood oo aan gacayro waxaan jiray oo qoys ballaaran iyo masaakiin iyo dad shaqeeyay macnaha dad labaatimiisu dameeyay afurkooda sameeyay jirtay marka qaar afurka suuqa la keenan ku qornaa jireen ana ku afurto maalmaha qaarkood macnaha inka guriga ku afuray ma ku afta kan ka xabada suuqa biyaha ku afuraysa marka jacaylka saamuuska oo qaba dirtay waxaan ku raahdaa ayaan u yimi jiray afurkaas u yimi jiray soo afurkaas oo qowlna jiray marka maalinba waxaa xasuustaa garoonkaas kubaddu macaani daawashadeeda afurkana aan socday dhexda ku go'ay oo kubadda si loo ciyaaray loogu eedaamay eedaanka kadib ka tagay oo meeshii afurka xaruntii lagu afuray marka tagayna laga hor afuray marka xamaasad gaar ah oo maxaan ku raahdaa kubaddaasi Ramadaanka la ciyaaray ilaahayna waan xasuustaa Ramadaanada xilligan iyo Ramadaanadii hore waxyaabaha isbedelay hadda mataqaana ay ku mifan karo xakmida ama maskaxda ka xasuusan karo ma garan karo hadda si loo sameeyo laakiin dhaqankii aan ka soo sheekay intada Ramadaanka loo sii diyaarinay gaarka guriga hortooda lagu wari jiray lagu haadi jiray lagu shaqo jiray ma arka hadda in aniga isagti ma garan karo laakiin aad ma arko hadda waxaad moodaa in aad mataqaana gaar ahaan taraawixda iyo masaajidka iyo waxyaabaha la xidhay aad loo maamulo aad loo habeeyo horumar badan isbedel badan ka dhacay oo masaajidada midalan ariyada la sii diyaariyay la sii iclaamiyo maxaan ku raacdo la sii shaaciyo waxa hore jiri jiray waaye masaajidkan Ramadaanka ku sii tala galo oo masaajidka la nadiifiyo la dhaqo ama la ranjiyo ama qala laga bedelo rooga ama waxa yani tanayn badan oo salaada tarawih iyo masaajidka taagtiidka la xiriira aad iyo waxyaabo Ramadaanka isbedelay aan ku si karno xakmina qodobkan ka sheegtay aad ka dhawaatay afurka marka hore qoysku kulmin jiray hadda wuxuu kulmiyaa marka qaar mugtay mujtamacaad ballaaran oo xirfadlayaal ku salaam arday meel wax ku soo baratay dalka dibadiisa ama jaamacado macayana ama iskuul la gaaro soo baratay arday iyo macallimiin in ku mesela waxaan halkan ka xusi karaa dugsiga sare kale oo weyn ka caado waxa noqotay in ardaydii aan iskuuladka ahay ay si sanadla macallimiinta maamulka dugsiga wala afraan ama afro sameeyaan hadda 10 sano soo socotay kolba intii magaalada joogtay in Afrika sameeyso oo halkan ka salaamay ragga sanadii la soo dhaafay magaalada ka maqnaa ka shaqeeyay ka afroodaradyadaas oo maxna bulshooyin ballaaran ama isku mihnada ama isku xirfada ama isku shaqaad salan xirfadlayaasha intaqaana garsoorka oo kale ama looyarada oo kale injineerada wax saas oo kale inay wada afraan inay muassasaadii hay'ado gaar ah ay sameeyaan afroodaradio oo soo kordhay hadda magaalooyinka qaar ka tirsan Jigjiga kale afroodaradio wadada iyo Hargeysa iyo wadada la googlayo oo bulshada dhan qof sanadkii hore Hargeysa laga sameeyay Jigjiga laga sameeyay baanaha mujtamac ballaaran ma afroodaradio sameeyay laakiin waxaan hadda aad u xasuusanayaa oo garan karin meel ku dambeeyay dadkii maxaa suxuurta dadku ka jiray iyo salaad subax carabtu waxa la musaxaraati magac gaar oo Soomaaliya ku leeyahay ma xasuusto laakiin dad mutaqaana mujtamacuna aad ixtiraam jiray oo ama masaajidda ku noolaa ama xafladaha laga ixtiraam jiray oo hore u soo toosi jiray oo salaada subax iyo suxuurta lagu dhigeen jiray marka suxuur ya saaymin aan familiyo garanaayo daaqada kala hadla ama albaabada ku garaaca oo macnaha dadka toosintooda qabilsana meelaha magaalooyinka kalena mataqaana iyadoo ka sii diiwan oo xataa qasaayid la qaada leh oo lagu yaqaano iyo la iga sheekeeyo la iga waramay marka qofka dadka suxuurta ku kicin jiray hadda meel ku dambeeyay ma xasuusan karo booramiin ku jirin kala hadda ma sheegi karo magaalooyinka kale ma garan karo salaada subaxna sanadkoo dhan yani si joogta dadku ku kicin jiray laakiin suxuurta iyo Ramadaanka aad caan u ahaa oo suxuur ya saamidoo ku kicin jiray akan kaasi inuu tabarqaaya ama uu yaraaday ayaan
malaynayaa oo aad u tabaya isbedeladaasi rabadaanta waa ka dhaceen ramadaan habeenada u dambeeya ciidda la soo dhaweynayo maxaan ku raahdaa waxa yani waa suuq weyn rabadaanta ganacsiyo dhan baa ku tiirsan maxaan ku raahdaa xilliga rabadaanta ganacsiga labiska iyo waxaas aad ugu tiirsan xilliga rabadaanta ka magaalada oo dhan waxay isku bedeli jirtay macnaa suuq furan maalmo maanta ka dambeysana sii cuslaanaya caruurnimada waxa aad u xasuusanaa macnaha marka intaan mataqaanaa marxaladda dambe la soo gaaray marxaladii hore waxaa caan ahaa in dharka loo soo talo waxaa ku dhahdaa dadka dharka loo soo talo carruurta dharka loo soo talo ninka tolmahaba ayaa asaas ahaa marka ciidii aan ugu horreeya xasuustaano carruura dhar tolmaha ku ciidi jirin waa khayraantaas mid fitshaari waana loo tiri jiray ama markaan safaariga loo yaqaano ma garanayo hadda moogta dhar rasmi uu noqdo lagu madaxda iyo xafiisyada laga xidho laakiin yaraanta waxa aad u xasuustaa inuu ahaa dhar yaalmeedina loo tiri jiray fitshaariga marka la talaayo iyo qiyaasta iyo isdaba socodkan family iyo waalidka hooyo maalinkaas oo dhan aad soo wareegaysaan kaba ku kaba kala ku kaba kan ku eegmo labiskan ku eeg يعني موسم كاسي أما حلي كاسي عيد وعيالك ساميول كلها هاي أسوس بدن ونقيتها يا وحنا تقرن كرتا موك هاي مجتمع حكيوي سنتولي جاي معلومة عيد اللي جير كله كرخت إنكار بيسوق على حافظة سوق بعد له أي سوق الجبتة وهم أي محل كورة هذا كضم بيسا مركا وضعنا حافظه مرنا سوق غير أحمر طبعاً ضوء الباطة حافظك السوق الاستيراد جهاد الضم طوحة كده ما يسمونه جهاد وقوي حفظنا لكن الصدمة حافظك السوق الاستيراد واحد مرة يسا سوق الأحمر قال وضع أسبوع عرف هذا الضم يعني سحمد يعجيري وقتي يكون قادر سنة حافظك تكتي شوي قاعد جلس أنت حافظك تجلس راح حسوستا أفر عشان نقول جينا قالنا نقول على شيء أصور ورينا أو أنت أسوق خبع سنين عيال عيدة يا ما توكله حبيبي كان عيدة مركا سوقنا الحرية معنا بعد ليش ما سحنا يا رم صوت وزير مالك واحد يكرتون يقشن وحي محان كرا لقى عيدة بطاطسن ممكن يحاولون يا موسى طويل بعد عيس دوكي لمركر لا طويل بعد عيس مركا يعني سوق عيد وسوق منطقة لياب كيسلة حجم مجتمعنا وذاك كرتا عرورتا iyo haweenku bulshada ka yihiin wadaxay kartaa multimedia soo dareeraan magaalada Madani xayaan heritage u taagan Soomaali sawir cad